bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeenna waxaana qodobada ugu waaweyn oo idinkugu soo gudbin doona ka mid noqonaya xaaladda Soomaaliya oo weli ah mid allow sahal ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay hadaladii kululaay musharaxiinta mucaaradka hawada u mariyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo go'aan ka gaaraya xaaladda Soomaaliya ay ku jirto sidoo kale waxaa daawadayaal barnaamij wareedkeena ku daawan doontaan xubno ka tirsan al-shabaab oo howlgal lagu soo qabtay howlgalkan halkee ayuu ka dhacay barnaamij wareedkeena ayaa idinkugu soo gudbin doonaa balse marka hore muuqaalkan laag saar oo la wadaaga asxaabtaada si aan u helno saaxiibo fara badan sida adiga oo kale waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso daawada subscribe inoo raacay taasina waxay ka qayb qaadanaysaa dhiirigelinteena iyo inaan idiin soo gudbino barnaamijyo tayeysan markana ku soo dhawaada qodobadii oo dhaca daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan waxaana ku bilaabaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadallo ka soo yeeray xubnaha mucaaradka oo sheegay inaysan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u aqoonsanayn madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu yahay musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa sheegay in mar haddii uu dhamaaday muddo xileedkii xukuumadda federaalka aanay aqoonsanayn sharciyada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku joogo filla Soomaaliya afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sharci darro ku tilmaamay hadallada ka soo yeeray xubnaha mucaaradka Macalimu ayaa inta ku daray inuu jiro qaraar iyo xeer ee horey u soo saareen golaha shacabka kaasi oo dhigaya in hay'adaha dastuuriga ay xilka sii haynayaan ilaa kuwa markaasi kale oo laga soo dooranayo Macalimu ayaa farta ku fiiqay in ilaa laga helayo madaxweyne iyo baarlamaan la soo doortay madaxda joogta ay xilka sii hayn doonaan afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa dhanka kale sheegay in dowladda ay diyaar u tahay wada hadallo lagu xaliyo ismariwaaga ka taagan siyaasadda Soomaaliya Macalimu ayaa dhanka kale ka digay in shacabka qalqal iyo cabsi lagu abuuro waxaa jira dadaallo ee beesha caalamka wado kuwaasi oo lagu doonayo in wada xaajoodka doorashada dib loo furo muddo xileedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhamaaday isla markaana ma jiro heshiis siyaasadeed oo ilaa iyo iminka laga gaaray oo arrimaha doorashada ku saleysan arrintan ayaa waxa walaac ka muujiyay wadamada taageera Soomaaliya iyo sidoo kaleba shacabka Soomaaliyeed xaaladda Soomaaliya ayaa qasan iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay go'aan ka gaarayaan xaaladda Soomaaliya sida uu qorshuhu yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan gaar ah ka yeelan doona xaaladda Soomaaliya maadaama ay ilaatay muddada xilhaynta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fadhigan oo ay dalbatay boqortooyada Britain oo ka mid ah shanta dowladood ee joogtada ah ayaa waxaa go'aan looga gaarayaa mowqifka ay qaramada midoobay ka qaadanayso arrimaha Soomaaliya gaar ahaan xaaladda kala guurka ah ee la galay sidoo kale kulankan degdega ah ayaa waxaa lagu dejin doonaa qorshe siyaasadeed oo ku aadan jihaynta xaaladda Soomaaliya dhinaca kale afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in ay weli u arkaan inay kulmi karaan madaxda Soomaaliyeed isla markaana ay lagama maarmaan tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo dhab ah Soomaaliya ayaa gashay marxalad aan horey loo arag taasi oo ah in muddo xileedka dastuuriga ee madaxweyne la doortay ay dhamaato iyadoo aan weli heshiis siyaasadeed lagu hayn hanaanka looga gudbayo marxaladda kala guurka ah ee uu dalku marayo ugu dambeynna daawadayaal haddaynu fiirino saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa faahfaahiyay howlgallo ballaaran oo laga sameeyo gobolka Bari howlgallada oo ahaa kuwo qorsheysan ayaa waxa ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland ka fuliyeen dhanka buuraha Caalmadow ee gobolkaasi saraakiisha horkacaysay baaritaanadaasi ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalladooda ay ku bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa shaaca ka qaaday in xubno ka tirsan al-shabaab ay nolosha ku qabteen walow aysan shaacin tirada iyo waxa ay al-shabaab u qaabilsanayeen deegaanada howlgallada laga sameeyay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro qaraxyo ah iyo kuwo toos ah oo al-shabaab iyo Daacish ay ka fuliyaan halkaasi si kastaba ha ahaatee Puntland ayaa xoojisay maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan ee ay ka wado gobolka Bari ee maamulkaasi oo qaybo ka haystaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale Daacish ugu dambeynna daawadayaal haddaynu fiirino ciidamo ka amar qaata maamulkii ahlu sunna ee xoogga looga saaray Galmudug
ayaa axadii si buuxda u qabsaday degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Warar aan helnay ayaa sheegay in ciidanka qabsaday degmada Matabaan ay yihiin ciidankii ahlu sunna ee lagu daray qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya, waxayna markii hore ka tirsanaayeen ahlu sunna. degmada Matabaan oo ka tirsan Hiiraan waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku sugnaa ciidamada ahlu sunna, waana degmo muhiim ah oo soohdin la leh magaalada Guriceel oo ka tirsan Galgaduud, isla markaana ka mid ah goobihii lagu aasaasay ahlu sunna. madaxweyne Qoorqoor ayaa wajahaya culays weyn oo dhanka ammaanka ah iyo soo rogaal celinta kooxda ahlu sunna oo ay suurtagal tahay inay ku wajahan tahay magaalada Guriceel iyo deegaano kale oo ka mid ah Galmudug. soo rogaal celinta ahlu sunna waxay ku soo aadaysaa xilli adag oo ay shacabka magaalooyinka Dhuusamareeb, Guriceel, Balanbale iyo sidoo kale Matabaan ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo amni ah, kuwaasi oo sababi kara in ay garab helaan ciidanka ahlu sunna. ammaanka Galmudug ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyay markii uu xukunka la wareegay Qoorqoor oo shaqadiisa ka mashquulay waqtigiisana ku lumiyay inuu dhex fadhiyo Muqdisho si uu uga shaqeeyo danaha filla Soomaaliya oo markii horeba kursiga xoog ku geysay halkaasi. wadaana daawadayaal waa inaga inta barnaamij wareedkeena kala socoteen channelkeena Zacaamada Official, fadlan like saaro la wadaaga saaxiibtaada si aan u helna saaxiibo fara badan sida adiga oo kale. waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkan aad daawade subscribe kana inoo saar gambaleelkana furo si aad u hesho xogaha aan halkan soo gelin xilli kasta iyo saacad